السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelkeyga Zainab Cali oo horeyna daiga cusubtahay. Please subscribe isaar, like iyo share. maanta waxaan sameysanaynaa 2 kiilo odkac oo jilacsan kala arag. meeshaas digsigaas maxaan ku haystaa 2 kiilo oo odkac ah. maxaan ku soo darsaday hal qaado buuxdo oo cusbe ah. hal qaado way kugu filan tahay. cusbadii maxaa isdhex gelinay hilibka si fiican inay lafta ka gashaa la rabaa. bilaa qof walba odkac si gooni different u karsada. anisaana u karsada. meeshaas maxaa ku soo darsaday qolfo fiican iyo hal heel ah. hadhow heelkan iyo qolfahan markay si fiican ku karto aakhirkii waa iska bibixinay. hilibkan hadhow saliida markaa ku karinayna insha Allah waa arki doontiin heel shiidan ku darsaneynaa. digsiga hilibka meesha iskaga tagay tartiib biyo dhala. wax biyo ma ku taabanaysid. dadaa jiraan markay saan u saaran saliid ku karsanaan qof walba sidii different u karsada. ani sidaana u karsadaa jileec kala arag macaan. waa kaas u jeedin hilibku soo bedelay buligi 1 iyo 2 ma joogo. taqriiban 30 daqiiqo ilaa 40 daqiiqo qaadana. biyo dhala hilibka biyo dhala. haddana asile dhameysanaa markuu si fiican u qalalo waa arki doontiin. markaas saliid iswag waxaa haystida ku karsanee. waa isku soo laabanayna insha Allah markii biyahaas oo ay soo dhasho. afar shay oo adduunyada inta la joogay qofka bini aadanka nolosha ku qaraaraynaysay ayaa ahlal jannaha maskaxdooda ku soo dhici doona. waa afartee waa geeridii waa gabowgii waa baahidii waa bogtaantii. afartaabaa maskaxdooda ku soo dhici doonta. ma naciimka intaan la eg ayaa ilaahayna siiyey. markaasay afartaa xasuusanayaan baa la yidhi xagga saraa laga dhawaaqi oo la odhan doonaa yaa ahlaljanna inna lakum an taxyow falaa tamuutuu abada. yaa ahlaljanna maanta laga bilaabaa jannadan waxaad ku dhex leedihiin nolol daa'ima. dhimasho dambe arki maysaan. nicmad joogto ah oo nuqsaan dambe aanan lahayn. dhallinyarnimo gabow dambe aan lahayn. caafimaad qab xanuun dambe aanan lahayn. allah ina siiyo jannadaasaa ilaahay loogu baaqayaa maalin walba. digsiga waa kan waa ku soo laabane. marka odkac karsanaysid maanta dhan hilibka waa la gedgediyaa. miiko mise qaad waxaa isticmaalaysid waa kan sa u jeedin biyaha digsiga meesha ka bilaabanaya biyaha halkaasii joogta. hilib geel biyo badan oo dhalaa. waxaa laga rabaa inaad sugtid biyaha iska qalajisid. markaasoo jilaac ku noqona ilmo yar xitaa way cuni karaan because biyahaasoo ku bislaana. laakiin hilibka haddaa saliid ku karsid kulle qofba si u karsada. meeshaas maxaa ku haystaa hal koob oo subag sixin ah. haddaa subag rabin saliid caadi waa ku karsan kartaa. subaga caraf zaa'idoo siina iyo dhidhin. markaas maxaa ku darsanaa 4 koob oo isla koobkii ahaa subag ugu isticmaalay ku darsanaa oo saliid ah. 4 koob iyo 1 koob oo subag ah. total maxay isku noqonaysaa 5 koob oo saliid ah. intaas way kugu filan tahay. ani maanta qiyaastaa karsanaa waa 2 kiilo. maxaa isticmaalay 1 qaado oo cusbe ah iyo 5 koob oo saliid ah. sa u jeedin koob koowaad waa kaas. koobkaas lee ku cabiranaa si qiyaasta igaga halaabin. 4 hadda 2 koob ku darsaday 3 soo hareyso. midka labaad isla koobkaasna guri Soomaali mina laga weynaa ilama ahan. koobka qiyaasta ugu fiican waaye. hadhowna heelkaas iyo qolfaas dadka afku uga gelin. qaadada iskaga bixinay khalaas. marka hilibka iyo cusbada iyo qolfiga heelka urkii hilib geel shiir oo qaba shiirkaas oo kaaga biinaa. hadhowna heel shiidan ku darsanay. markaas hadday shaqada imaan maxaa laga rabaa hilibka inaa maanta dhan walaaqdid sida uu noqdo hal kalar oo wada siman. haddaa saliidka iskaga shubtid iskaga dhaqaajisid hilibka geesna way kaaga kare dhinacna way gaduudane dhinacna ma gaduudane. maanta dhan maxaa laga rabaa miikooga mid qaadada inaa la dulmartid isdhexgelisid rogrogtid
se hal kalar wada noqdaan. soo haddana cabaar ugu tagaynaa. hadhow qof walba dad qaar maxay jecel yihiin hilib gaduudan, bademo hilibka oo dabka sii saarnaanaya markaa saliida aa ku dartid wuu kaasii adkaanaya. kuwas hilibkan karni mu kara inay karto ma u dhinno, sababtoo 30 daqiiqo ka badan oo biyahoo dhale oo gursade intaas karis ugu filantay. hilibka zaid u karsan yahay. soo saliida waxaa laga rabaa hal kalar oo isleh inaa sugtid markay noqotona ka baxsatid. laakiin haddaad dabka kusii haysid hilibka dhan muxuu kaa noqonaa adeeg. saas la socdaa. saa ujeediin maanta dhan miikooga la dhaxmaraa maba laga dhaqaaqinbo. bad markaa koo aa ku shubanaysid intoo biyaha igaga gursanayo shaqadaadaas sii qabsane. markaas fadlan da igu cusubtay subscribe ii saar, like-tan ha iga baqaylin, share asxaabtaada u dheh. insha Allah, thank you. saliida hadday bilaabaysa inay soo karkarto. saliida markaa ku shubay saliid karkarsan ma ahayn, saliid iska caadi suwaga bisaa soo dhalaaliye. soo maanta dhan miikooga meesha kala dhaqaaqin, maanta dhan walaaqle. halkan oo kusoo laabanay waxaa soo shiite 5 xabo heel ah. hadduu heelka shiidan ku yeelan waa isticmaal kartaa, haddii kalena makiinada aa ku shiidanay. soo makiinada ku shiite qolfii heelkan waa iska bixiye, haddii kalena kaliimooya ku tuban kartaa. adduunkan wax oo adeeg ma jirto, wax walba basiid waa. hilibka hadduu wax yar oo beena u hare sida la rabay kalarka la rabay, ani sidaa raba qiyaasteedii way gaartay. soo caaraf jikada dhan qolfii koo iyo heelkii maxay kasii baabiisa urka. haddana heelkan kale kaala arag iyo suwagan carafee kasii dhigay kaala arag. dad qaar maxay ku darsanaan odkacaga timir. haddaad timir rabtina timirta laftaa ka bixinaya waa kuskuusanaya qiyaasta u baahantahay. haddii kalena zabiib hadduu ku yaala zabiibaa ku darsanaya. ani maanta midkaa isticmaalaya zabiibaa ku darsana xalo xoogaa fiican, goos timir ma iga haynin, zabiibkaasaa ku isticmaala. haddaa labada rabinbu sidaan kugu filan. waa kaas. ugu dambeyntii odkaca sidaan uu kusoo baxay kaal iska arag. ani sidaan rabay, dad qaarna way sii gaduudiyaan. bad saliida odkaca intaa kusii heynaysid odkaca wuu adkaanayaa, ilaan odkaca karis ma u dhinnayn. soo wax yariis kalarka hadduu buni kuu noqdo diyaar waaye, as long as waxaa cunaysid inay ceerin ahayn. qolfii heelkii dhan waa ka bibixiye. hadda maxaa ku darsanayaa zabiib. saan nii sheegay ani maanta timir ma rabin, waxaa rabay inaad zabiib isticmaalo. zabiibaa ku darsanaa. zabiibka isticmaalayaan madowga iyo jaalaha isku jirta waa. haddii hal nooc haysatin noocaasa isticmaale. haddeeba kuu oolina sidaanaa ku cune. wuxuu diidaa male sabaayada canjeerada kaala arag. waxaad isku dhufso kasii dhaqaaq waaye. fadlan hadduu video ku cajabgeliyey subscribe ii saar, like ii saar, asxaabtaadan la wadaag. inta video kale ku kulmi doono waxaan igaga tagaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. fi amaan illah. adduunyadu waa sida harka. adduunyadu diintay la socotaa, adduunyadu aakhiraday daba socotaa. haddaad tidhahdee adduunyada ayaan u jeesan oo aakhiradii baa ka jeesan, waxaad la mid tahay nin yidhi harkayga ayaan soo qabanayaa. ma soo qaban karaysid. walam yaatihi min addunya ilaa maa kutiba lahu baa nebigu ma helo. qofka hamigiisa adduunye ka dhiga ma helo buu nebigu yidhi, ilaa wixii ilaahay u qadaray maan wax kale ma helo.